السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا كوبعية سوفت وير عشركا وحنا قلنا عشركيني شناد وحو كهدلي دونا qaabka loo diiwaan gelinayo vendors ama suppliers markaad wax kasoo iibsanaysid waxa loo yaqaanaa vendor ama supplier waa kambaniyada ama shirkadaha aad wax kasoo iibsatay loo yaqaano vendor qaabka loogu diiwaan geliyo programka based ayaan bari doonaa dhinaca programka ku leedahay asxaabe dhinaca programka markaan usoo leexano marka la diiwaan gelinayo vendor ama supplier labada magac oo sumide waxa la tagayaa menu maintain baa la tagayaa menu-dan waxay samaysaa creating ama waxbay diiwaan gelisaa markaan diiwaan gelinayno vendor halka la tagaysaa menu menu shaqooyin fara badan bay qabataa customer-ka meesha laga diiwaan geliyo meesha vendor-ka laga diiwaan geliyo meesha shaqaalaha laga diiwaan geliyo chart of account budget-kii item inventory ku yaal meelaha wax laga diiwaan geliyo dad baa loo yaqaanaa maintain meeshaas waa meelaha ugu shaqada badan ee ka dhaca shaqadu ka dhacaan haddaan vendor diiwaan gelinayo qaybta vendor baan ku dhifanayaa kadib shaashad yar baa kuu soo baxaysa shaashada yar marka kuu soo baxdo maxaad qabanay waxa rabaa inaad inta information boxes ka banaan inaad buuxisid boxes ka markaad buuxisid ayaa noqonaysaa inaad vendor-ka diiwaan gelisay marka boxes ka san u buuxiyo waxa rabaa horta liiskii waxa rabaa liiska customer-ka aan vendor-iska aan buuxinayo marka liiskoodii waxa soo furanayaa PDF liiskooda sheegaya PDF kan soo furto PDF kani waxa igu taxan dhamaan liiskii diiwaan gelinta waka vendor-iska aan diiwaan gelinayo waa afarta vendor baan diiwaan gelinayaa information-kooda oo buuxana ayaan diiwaan gelinayaa marka vendor-ka ugu horeeya waa indho deero ninkaas company-ga waxbaan ka soo qaataa oo marna waa company-ga wax ka soo qaato calimaaweel oo company wax ka soo qaato aljamiil oo company ka soo qaato afarta company ee kala duwan ee wax ka soo qaato ayaan diiwaan gelinayaa marka ka soo qaad vendor-ka koowaad baan diiwaan gelinayaa horta serial number-ka ii soo koobi garay serial number-ka anaa la baxsaday marka serial number-ka anaa u bixiyay ka doonaysa la bixi kartaa dad tahay macna accountant marka serial number-ka anaa siiyay marka aday ku taala serial number-ka aad vendor-ka siinaysi kadib magaciisa soo koobi garay waa indho deero magacana aan soo koobi gareeyo name halkaas lagu qoray horta ka waa nin sheeka dhaafay waxa sameynaysaa vendor-kaas ID waa ID-ga waa muhiim ID inaad siisid vendor-kaaga ID-ga ka doonaysa ka dhigan kartaa hadda number baad ka dhigan kartaa magac waxa doonaysa ka dhigan kartaa name-kana waa shirkadda magaceedii baa ka diiwaan gelisay labada shay mid diiwaan gelisay xagga hoose u soo noqon xaggan ugu hooseysa wuxuu baahan yahay content waa number-keed kala xiriirisay kasoo qaad numberkiisa oo 4214357 oo 54 ba numberkaas kala xiriir account number-ku waa account-ka uu ku leeyahay Dahabshiil oo kale ama Dar es Salaam bangiga ama Premium Bank uu ku leeyahay kasoo qaad account-kaas uu ku leeyahay number kale marka mid walba number buu leeyahay account walba adduunka number buu leeyahay mail address waa meeshuu degan yahay kasoo qaad supplier-kaas wuxuu degan yahay New Hargeysa oo kale waa meeshuu degan yahay halkani waa waa city waa Hargeysa oo kale Hargeysa uu jooga supplier-kaasi halkan waxaad ku qoraysaa dalka Somaliland oo kale information la xiriira ninkan office manager-ka vendor-ka oo kale dad haysid oo kale ka soo qaad Hussein waa office manager-ka macna shirkadda indho deero oo kale marka vendor type-kaas wuxuu ka hadlayaa vendor-kani waa vendor-kee marka vendoradu kala duwan yihiin qaar waxay kuu keenayaan inventory-gii qaar waxay kuu keenayaan adeegii sida service kuu qabanayaan qaar ba consultant oo kula talinaya vendor-iska marka vendor type-kee buu yahay ma qaybtii inventory-ga kan wuxuu yahay waa qaybtii inventory ama merchandise buu ku qoran karaa ama qaybta waxaad haysaa waa qaybta Soomaali baan ku qoro qaybta bagaashka oo kale marka adaa magaca gelinaya magaca doonaysa gelinaysa ka soo qaad merchandise baan geliyo aan Ingiriis isku raacay waxa marka magacoo gaaban buu yeelayaa inta dambe uu diidayaa merchandise oo inta soo gaabi maxaa kale muhiima waxa aad u muhiima expense account-ka expenses noqonaya marka haddii vendor-kan yahay ku keenaya sida indho deero kale wuxuu ku keenaya raashinkii waxa vendor-ka la doortaa halka inta soo furatid inventory baa dooranaysaa
marka waa khasab haddii halkaasi kaa khaldanto akoonkaagu ama waxa noqonaya systemkaagu khalkhal baa ku dhacaya gebigiisuba khalkhalaya marka waa muhiim inaad halkaa fenderka diiwaan gelisay inventory maadaama uu alaab kuu keeno hadduu consult yahayna waxaad diiwaan gelinaysaa consultant expense marka waa agoonka noqonaya waa inventory waa muhiim haddii kale systemku kaa khaldan halkaa waa inaad inventory aad diiwaan gashataa marka inventory baan diiwaan geliyey telephone name telefoonka uu leeyahay kasoo qaad waa 567 numberka telefoonkaas hadduu telefoon kale leeyahay emailkiisu waa muhiim emailkiisu hadduu uu ku siiyo oo kale waa muhiim sida information aad kala xidhiidhin indho aad kasoo qaad waa tusaale kan emailka hadduu website leeyahay websitekiisa halkaa gelina intaas information waa information la xidhiidha vendorka xaggan kale daaqada kale soo fur address oo kale addresskani wax kale lama xidhiidho meesha ku yaalo qaybuhu leeyahay waxaan oo dhan buu la xidhiidhaa marka qayb muhiima maaha historyna eeg historygana qayb muhiima maaha purchase info qaybta ugu muhiimsan ayaan dhigayaa waa qaybtan ugu hooseysa waa terms and credit kaas maxay samaysaa daaqadaa yar baad soo furaysaa customize terms for this vendor baad taabanay qaybtani intaasoo shaqo bay qabataa qaybtan waa qaybta uu maamulaysaa muddada deynta oo hadda customerkaasoo indho deer hadduu ku siiyo deyn waa qaybta maamulaysa kasoo qaad deymaha oo kale wuxuu siiyaa 30 cisho ama 40 cisho buu mar walba ii qabtaa marka waxaa jira dee mucaamalad niga dhexdhexeeya vendorka indho deer oo kale waxaa laga yaabaa deyn walba uu ku siiyo muddo kuu qabanaya marka muddadaas ayaad ku qoraysaa halkan kasoo qaad wuxuu ii qabtaa 45 cisho inaan lacagta kusoo bixiyo discount date baa jira iyo discount percentage discount days waxay tahay muddada aan haddaan kusoo bixiyo aan discount helayo kasoo qaad businesska waxay adeegsanaan 10 cisho ee ugu horeeya haddaad kusoo bixisid 2% baad discount helaysaa oo waa lagaa daynaya marka waa discount days baa loo yaqaanaa kasoo qaad 10 baan geliyey percentage-kana halkan la geliyay percentage-ka aad helaysin marka 10 waxay ka dhigan tahay 45 cisho lagu amaahiyey 10 u horeeya haddaad soo bixisid waxaad helaysaa 2% marka saasaa loo geliyaa halkana waxay sheegaysaa credit limit waa xaddiga uu ku amaahin karo marka xaddiga ku amaahin karo hadda wax ku default ama ku sii qorasho kun wad ka bedeli kartaa wax dhigi kartaa vendorkaas wuxuu amaahin karaa ilaa $10,000 halkaas ku qoray xaggaasoo kale oo 100,000 ma ka dhigay 0 masaxo halkaasoo kale marka halkaasoo kale waa 10,000 buu amaahin karaa sidaas maxaan sameynaya save and new haddaad mid kale dooranaysid save and new baan nidhi vendorkaas hadda uu diiwaan gashnay vendorkii labaad usoo leexo vendorkeena labaad waa maxay waa Omar sida numberkaasoo koobi garay marka sida numberka adaa waxaa doonaysa loo bixi karaa marka anaa laakiin sida numberka doortay magaciisu waa maxay waa Omar company waa company caan oo Soomaaliya ka caana kasoo qaad alaabtan kasoo qaadanaa bagaashka oo kale namekiisa halkaas ku koobi garay adaa qoraysaa namekaaga qoraya kadib halkan sidii horun baad buuxbuuxinaysaa oo isku mid mid walba oo isku mid contactiga waa numberku uu ninkaasi leeyahay 423 kasoo qaad numberkaas kale uu leeyahay account numberka uu ku leeyahay Dahabshiil oo kale ama Dar es Salaam kasoo qaad accountkaas uu ku leeyahay magaaladu ku yaalo oo kale wuxuu ku yahay waxaan leeyahay meesha ku yaalo kasoo qaad suuq wuxuu ku yaalaa Jigjiga yar oo kale ku yaala xaggan waa Hargeysa hadda hit qoro markii hore aan diiwaan geliyay Somaliland buu ku yaalaa coditayba merchandise ka dooraba markii hore aan diiwaan geliyay inta kale waa waxyaalihii emailkii la xiriir emailkiisa ka soo qaad emailkiisu waa omar123@gmail.com oo kale intan telefoon numberkiisa waad qoraysaa haddaad haysid akoonkan horta waa muhiim waa very important akoonka khaldin mar walba wana diiwaan gelis halka maxaad diiwaan gelinay inventory haddii kale uu ka khaldamaya systemkaasi khalad buu keenaya markasta purchase info-na waan soo dhiganaa markii markii dhawaad arkanay daaqada yar baad soo furaysaa oo meesha aad deymaha ka maamulaysid muddooyinka marka haddii 30 cisho ku amaahin oo kale waad bedeli kartaa 30ka dayska discount-kana isaga kuu sheegaya intuu ku amaahin karona isaga kuu sheegaya waxaasoo dhan isaga kuu sheegaya kadib save and close baad ka dhahay save and new baad dhahaysaa inta mid diiwaan gelisay ka saddexaadna saas uma loo diiwaan gelinaya marka kulligood diiwaan gelintu waa isku mid waa qaabka yar ee fudud ee loo diiwaan gelinayo waxa muhiim u ah ID-giisa wana haysaa horta ID-giisa kow iyo magaciisa
iyo akoonka inventoryga duwaan gelinaysa. waxa kale waxyaalo dheeraada oo la xiriira numberska nambarada uu hayso, email ku hayso, website ku leeyahay, meesha uu ku yaalo, waxaas oo iska information dheeraada. laakiin waxa very important ah inaad duwaan gelisid ID-giisa iyo magaciisa iyo akoonka expenses ma wada noqonaya. kasoo qaadka account number waan si markii hore sheegay waa akoonka uu dahabshiil ku leeyahay ama Dar es Salaam ku leeyahay ama bangiyada kale ku leeyahay. xagaas waxa ku qori kartaa meesha ku yaalo xero orba waxaan karaa xero Soomaaliga iyagu adag aw ala magac xuma xero awr halkaas ka dheh kadib akoonka diiwaan gelinaysa. halkaas waa sidaas inventory ma walba doorata markii hore aan soo shaxay vendorka uu yahay merchandise baan iska dhahayaa. inta kale isagaa jaray ha ku yaala Hargeysa oo kale, Somaliland, telephone numberkiisa adaa diiwaan gashanaya, emailka uu leeyahay kasoo qaad emailkaas uu leeyahay waxaan waa iska tusaale. marka information sax aad gelinaysaa markaad in qofka la xiriira kadib batcheska haduu informationkii kale aan sheegayay ku amaahinayo deynta inta ugu badan ku amaahinayo intaas diiwaan save and new. kii saddexaad waan diiwaan gelinay, kii afraad uma nagu halkiin ugu dambeeyay oo Al-Jamila oo waa afarta customer bayaan diiwaan gelinay. kii ugu dambeeyay ayaa noo haray ID-giisa halka aan diiwaan geliyo. marka casharkan waa casharka fudud ee ka hadlaya qaabka loo diiwaan geliyo vendorka. kadib magaciisa waa halka ku diiwaan gelinaya. kadib channel-ka aan tago qaybta channel-ka muhiima numberka uu leeyahay customer-kaasi waxaan leeyahay vendorkaas aan leeyahay account name-ka uu ku leeyahay dahabshiil oo kale ama Dar es Salaam kasoo qaad ID-gaas uu leeyahay. kadib halkan wuxuu leeyahay vendor type waa merchandise alaab buu keenaa kaas waa muhiim inventory wanigi soo sharaxay. waxaan kale waa sidii un loo diiwaan gelinaya. new Hargeysa bas ka dheh halka waxaad qortaa Hargeysa oo kale, Somaliland halka dheh inta maanta email haduu leeyahay bala waxaan kale haduu leeyahay saas u diiwaan gelinaysaa. kadib save and new afartii customer ama afartii vendor qaabkaas aan u diiwaan geliyay asxaabay. kadib saan liiskooda u eego waxaad tagaysaa qaybta list bad ku dhulifanaysaa si liiskooda u aragtid vendorska diiwaan gelisay. afartii vendor aan diiwaan geliyay waa kuwan liiskoodii, nambaradoodii, telefonadoodii, tape-koodii, balance-goodii waxaan oo dhan saas loo diiwaan gelinayaa. ka asxaabay haddii xitaa wax naga khaldamaan kasoo qaad kaasoo kale magacii baan khalday isaga uma double click ku dhifanaya marka toos isaga ku geenayo magacii hada khaldanta kasoo qaad Jamiil ma qorin ma baramino magac kale diiwaan gelinay saas u masaxaysaa. kadib waad ku qoraysaa magacii save and new bas ka dhahaysaa. marka haddaad xitaa khaldantid halkaas uma double click uma mid walba ku dhifanaysaa. after vendor saas loo diiwaan geliyay asxaabay barkaatu. ka casharkan waxaan ku noqon doonaa qayb hore oo casharkii hore la xiriiray casharkii hore la xiriira customer-ka. marka customer-kii markaan diiwaan gelinay meel yar baa ka leexan doonaan ilaaway. customer-kii markaan diiwaan gelinay mar walba waxaan dooranayay account type-ka ama akoonka uu ka kordhi doono oo halkan la xiriira sales info-gu la xiriira. marka halkaas waxay noqonaysaa inaan mar walba aan halka account type-ka aan soo doortay sales way u adkaan si automatic baan rabaa inaan u geliyo. haddaba qaab automatic aan u geliyo waxaad dul tagaysaa qaybta maintain sales information customers dul tagay sales information customers halka waxaad dul tagaysaa waxaad dul geynaysaa account-kii baad dul geynaysaa sales-ka ahaa sales baad dul geynay hoos u soo wad sales waka halkaana sales discount baad geynaysaa. sales discount waxaad geynaysaa agada sales discount baad geynay labadaana qaabkaas u diiwaan geli. kadib markii aad intaa dhameysid waxaad haysaa okay xitaa payment-iga waxa kana ka bedeli karaa oo payment method markii uu soo dhigay afarta qodob uu soo dhigay payment-iga. marka halka inta check aad Visa card ma isticmaalano halka wuxuu bedeli karaa sad halka sad buu bedel halka wuxuu bedelaysaa e-dahab halkaana e-dahab buu bedel halkaana naga masax labada kale naga masax maadaan isticmaalin ba naga masax labadaana. kadib okay baad haysaa. kadib aan customer-kii dul tago customer-kii
micnaa waxaan oo dhan way kusoo kordhamaya hadda uma baahna inaan meeshii maalin walba ka doorto sales info ga isaga automatically isku geliyay uma baahna micnaa inaan mar walba aan doorto automatically halkaa looga soo geliyaa paymentigi aan eego micnaa inay kusoo kordheen saad iyo ani halkaa ku duldhifanayay saadkii oo ka ii dahab kusoo kordheen iyo jeega iyo cashkii waxaan oo dhan halkaasay kaga soo kordhayaan marka intaan waxa ka noqday casharkii hore asxaabay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu